السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسروا channelك AJ فادنا سوروا أصحابتا فيديو كلامات يودو وضع فيديو كنا دركتان حكوا أساس دركتان وقصة وشيكو مركا شيكة نحكي سبسنت هاي قبل لي جادو جلاديس مركا شيكة ده نحكي قاعد مريكنكا مركا إن شاء الله إنتنا فيديو قبلابين waxaan rajeynayaa haddii aad maartay qisooyinkiiya waxyaabaha adduunka ka dhaca aad jeceshahay inaad subscribe noo saartid videogana like garaysid dad jeclaatid insha Allah marka videoga hadda ay noo bilaabo gabadhan ay sheekadu ku socoto magaceedu waxa weeyaan Gladys waxay ka soo jeeday jasiirad Dominic la yiraahdo Gladys iyadoo markaas single mother ah oo wiil yar qurxaysata waxay damacday maaragtay inay Mareykanka tagto oo ay nolosheeda wax ka bedesho si inankeeda future-kiisu maaragtay u fiicnaado waxay damacday inay Mareykanka kaliya tagto oo wiilkeeda ka tagto si maaragtay ay nolosheeda u bedesho marka Mareykanka timi magaalada New York bay soo degtay oo halkii bay ka bilowday shaqo marka cleaning ah waxay soo nadiifin jirtay jaamacadaha xafiisyada meelo badan hoteelada meelahaas ka shaqeyn jirtay marka gabadhani waxay gabar tafa oo maaragtay doonaysa inay shaqeysato oo meel iska soo saarto marka iyadoo shaqeysanayso oo maaragtay dee nolosha ku jirto keedina ka fikirayso dee shaqeysanayso kaaliska arag iyadoo maalin tareenka ka soo degaysa waxay la kulantay nin bay la kulantay marka ayagu waa isku xaafid bidegan yihiin laakiin ninkana waa isku dalbi ka yimaadeen marka way isgarteen halkii buu la sheekaystay wuxuu ku yiri waxaan jeclaan lahaa maaragtay inaynu xiriir yeelano lambarkeedii bay siisay maaragtay sida ay isla xiriiraan anyway halkii bay isbarteen waa la isla soo xiriiray waa la isfahmay muddo bay isla socdeen marka 2 sano marka ayagoo isla socda oo de noloshoodu ay dhagdhag tahay oo ay laba qofood de maaragtay isjeclaaday oo nolosha isla fahmay baa wuxuu damcay marka inuu yiraahdo kaale anigu marka guriga ila deg marka 2 sano marka ayagu isla socda bay isla soo degeen marka wuxuu noolaayay si laba qof oo maaragtay isqabo oo kale oo maaragtay caruur isu leh iyo marka nolol bay haystaan caadi ah iyaduna dawaatan noloshii ka baxday maaragtay adkayda kaligeeda ee cleanerka iyo meelaha ka soo shaqeyn jirtay waayo ninkani wuxuu noqday nin businessman ah oo maaragtay dhaqaale haysta oo magaalada kule buu noqday marka waxyaabo badan ay ka warwari jirtay ba marka de qadaaqada ka baxay inankeedii way kaysatay college bay gashay school maaragtay xagga si waxbarashadeeda si u sii kordhisato bay schoolkii gashay marka nolosheedu sidii ay rabtay maaragtay u socdaan nin jecel inankeedii oo yimi iyo iyadoo de maaragtay dhaqaale aan ka fikirayn hooyadeedna way timi halkiina jaamacadii bay gashay wax bay baranaysaa marka muddaysa ugu jirtaa marka ninkani waa nin maaragtay marba meel tago oo waa nin businessman mugtaa oo de ganacsato ah marba meel buu taagan yahay marba meel buu ka hadlaa marka iyadana wuu marmar buu iyada u baahan yahay oo ku yiraahdaa maaragtay meel marka laga casumo kale nin kasta ama qof kasta oo la shaqeeyo qofka maaragtay nolosha la qaybsada buu soo kaxaysta marka iyadana sidaas leeg wuxuu ku yiri waa inaad maaragtay meelaha marka cashooyinka maaragtay la casumo iyo waa inaad maaragtay meelaha seminaarka meelaha ay raacdid ama I don't know anything maaragtay wax kasta ku saabsan xagga shaqadiisa oo marka qofka nolosha la qaybsanayo inuu yimaado iyaduna way raaci jirtay marka waxba loo arki jirba inay de nin naagtiisa yihiin oo ay maaragtay isqabaan isaguna xuran jiray waa wife-keygii marka guursan isma qaban marka laakiin de waxba ka dhaxeeya laakiin isma qaban dadka wuxuu ka dhaadhicin jiray wuxuu tusi jiray oo waa xaaskaygii buu koran jiray qof kasta marka dadka yaqaanay waxay u arki jiray laba qof oo lamaane oo maaragtay qurux badan oo de isfahmay I don't know like weligood waxba isma lahayn waxba jira anyway ninkani marka maadaama maaragtay uu magaalada ku leeyahay ganacsato ah iyaduna ay maaragtay nolosheedaas ka jirto wax barashada ay maaragtay iyaduna wax baranayso noloshii maaragtay ay si yar fudud maaragtay ugu jirto waxbaba marka iyada maaragtay nolosheedu complicated maaha inkastoo haddana ay raacdo meelaha maaragtay uu ninkeedu uu dhoodhoofo ama uu tago haddana waxba kama sii oga noloshiisa iyadu teedun bay yara wadataa 7 sano marka ayagoo isla socda buuxu damcay inuu guri u iibiyo iyada basically guri buu maaragtay uga dhigay like
xilad surprise oo kale uu ka dhigay way u qaadan weeday marka iyadu one thing bay sugaysaa wax bay sugaysaa ninkan maadaama ay jeceshahay nolosheedu maarta ay degan tahay sidii ay rabtay maarta ay u socoto ninkana ay ku kalsoon tahay mid quray doonaysaa waxay doonaysaa inay xaas noqoto oo ninkan ay iskursadaan maalintii marka uu gurigii uu tusay ay maarta dhex marayso unba waxay ku soo qaado waxay tiri waxaan ku weydiiyay miyaadan islahayn hadda inay tahay waqtigii ugu fiicnaa maarta aynu hadda aynu iskursano iseen u degno marka iyadu maadaama wiil haysato waxay isleedahay maarta family sii samayso dee ninkana markaa taaniin sheeganaad ka ilaaway ninkana wax weeyaan aabo weeyaan oo laakiin xaaskiisa hore way kala tageen caruur kale haystaa iyadu laakiin wiilka qura haysataa marka iyadu waxay dabacsan tahay in ninkan maarta iskursadaan oo caruur isu dhalaan saas iyadu markaa doonaysaa marka ninkiiba ku soo qaaday waxay tiri miyaanan iskursanayn de maxaa jira markaas isugu wuu khalkhalay wuxuu no halkiiba xanaaqay no hadda waqtigan maaha sid anyway wuu yara warwareejiyay iyaduna maadaama uu guri maarta markaa dee kadisa uga dhigalay uu farxad ay markaa tahay waxay tiri waxa malaha laga yaabay maarta in waqtiga waxa malaha way iman doontaa halkiibay arrintii haddana dib maarta ay meel iska dhigtay farxadii markaa dee guri dhan uu maarta magaceeda ku qoray uu ka farxiyay tiibay tiri baan isiri tana hadda maarta aan onjay gareenaya farxadan ma doonayaan burburiyo isaguna sidii leeg wuxuu yiri waxa arrimaha iska daa way iman doontaa tii intaas buu ka dhaadhiciyay iyaduna halkiiba maarta khalaas way ilaaween iyagii markaa saa ku socda oo iyaduna maarta gurigan dee ay diyaarsanayso unba maalin unbuu yiri shaqan tegayaa magaalada de kama foga meesha wayna taqaanaa meesha uu leeyahay waan tegi doonaa maadaama markaa uu ka farxiyay maalintii bay tiri waxaan sameynayaa si maaragtay surprise baan ugu tegayaa iyadoo maaragtay hadiyadii wax sitaa bay tiri shaqadan ugu tegayaa maaragtay oo isagoo shaqeynaya isagoonan ifilanayn baan ugu tegayaa way u tagtay qolkiisii iyo xafiiskii I think waa xafiis xafiiskiisii iyo de meel uu iswada wato weeyaan waa guri oo kale oo dee qolaal iyo wax leh halkii bay toos u tagtay way gashay isla markii albaabkii furtay markaa dee way garanaysaa meesha uu joogi moogtahay waxba ka soo horbaxay ninkii iyo qof kaloo dumara baa jooga naxdin labadii qof oo maaragtay aan dhar xidhnayn oo kaligood qolka ku jira bay aragtay naxdin halkiiba shock qaaday markaa qofka dumarka la jooga way u qaadan weyday waayo waxay noqotay saaxiibadeed her best friend bay noqotay her best friend baa ninkan ay 7 sano la socoto hadda guriga u iibiyay waxaas maaragtay ka dhaxayaan bay waxay ku qabatay saaxiibadeed kibay taf way carartay way u qaadan weyday way carartay waxay ku tiri maanta waynu kala dhimanay like dib khalaas I'm done go'aan bay maalintii qaadatay waxay tiri dib oo u dambaysa kuma arki karo nolosheena halkaas maartay ku kala dhamaanay daase ninkii uu qaadan waayay wuxuu yiri u dajiyay way yara xanaaqday halkii uu soo noqnoqdaa dhowr joor uma noqonayo iga raal noqo halkii idin maartay way adkaysatay way ku adkaysay waxay tiri no gurigii kama furto telefoonka kama qabato anyway way chartay marka ninkan qalbigeedu jabiyay wuxuu gaaray marka heer uu ilaa meel kasta ay marayso uu daba galo oo iyada hooyada la joogto oo hooyadu yimaado yiraahdo please la hadal gabadhaada waxaan sameeyay dib u noqon maayo anyway family-ga ay waxay yiraahdeen way ka diidan iyaguna waayo inantu aad bay u qalbi jabtay ta kale waxay markaa waxayaan 9 jir weeyaan markaas ninkana 7 sano bay la soo socotay markaa waxay leedahay nolosheedii waan baabiyay waad ka garan kartaa maarta qof intaas oo dhan qof sugayay haddana waxaas maaragta ay aragtay lagu sameeyay go'aankeedu ku adkaysatay laakiin ninkii halkii kuma hadhay meesha ay taagan tahay uu taagan yahay telefoon buu kasoo daba dirayaa 24 hours telefoonkeedu garaacayaa xafiiskay joogto meesha ay joogto wuu og yahay maalinta dambe waxay baratay nin kale baratay sidoo markaa ninkani uu daba joogo oo telefoon ku waalayo oo iyaduna ka dhumanayso ka cararayso albaabka ku soo garaacayo albaabka ayna ka fureen dadka ay taqaano u tagaya oranaya igala hadla bay maalinta dambe
sidii ay ninkan u baratay bay nin kala baratay isla meeshii isku wadadii ay maraysay iyo tareenkii wixii oo dhan baa wiil kale bay baratay ninkii markii ay isbarteen noloshii ay doonaysay oo dhan bay ninkan ka dhex aragtay isla markiiba way isfahmeen way isjeclaadeen halkiiba ninkii ay baratay markaa wuxuu noqday wax kasta ay ninkan maaragtay ayna ka helin uuna ahayn buu ninkana noqday wuxuu noqday dabiicadii ay doonaysay 3 week markaa iyagoo markaa isla socda oo ninkana weli hadda harassment ku wada bay ninkii ay markaa baratay isla markiiba bil gudaheed wuxuu ka dalbaday guur wuxuu yiri Gladys waxa tahay qoftaan doonayay marka waan hubaa 100% baan hubaa aad tahay qofkii nolosheeda maartay ku haboona inaan la qaybsado marka ma doonaysaa inaan isguursano halkii bay tiri yes ninkan ay 7 sano la socotayna markuna waxa maartay ka mudalban laakiin ninkan ay 3 week bil gudaheed taqaanan uu ka dalbaday ninkii halkii bay maartay ay yeeshay waayo wuxuu noqday qofkii ay doonaysay isla markiiba isfahmeen halkiiba waxay bilowday inay arooskeedii ay qaban qaabiso oo ay maartay bilowdo oo sida family ka sheekeyneen iyadu waxa uu cadeed maartay aroos marqura aroos qurux badan maadaama maartay hadda ay dhaqaale haysato wax kasta haysato picture ba maartay maskaxda ugu jiray inay arooska adduunka ugu qurux badan samaysato oo everything ay ka dhigto wax kasta ay ka dhigto cadaan anyway sidii ay doonaysay bay ku bilowday ay tiri waqti bay qaadanaysaa planning bay samaysay halkii bay isla markiiba ku dhaqaaqday marka iyadoo markaa waxaas ku jirta ninkana kama harayo wuxuu ogaaday markaa dee inay nin baratay gurigii buu yimaadaa wuu hortaagan yahay gaariga guriga hortaagan lambarkiisu qortaa wuxuu doonayaa ogaado qofka ay yihiin halkii uu telefoon soo diraya wuxuu ku leeyahay yaad la joogtaa yaad la baxday halkii inantii nafti buu keenay ilaa markii dambe uu dhagax gurigii buu shiidaya maalin markaa waxa dhacday habeen iyagoo iyada ninkan cusub ay la socoto iyagoo maar TVs ka daawanayo unba daaqada unba dhagax baa kasoo dusay boom daaqadii baa maartay jajabtay marka ninkan marka ay la socoto wuxuu yiri no waxaan uma adkaysan karo wayna booliska maartay u wacno marka iyadu waxay isleedahay kale iska hari doonaa ninkan waa u yaran xanisanaysaa waayo mar hore ay ahayd inuu maartay inay boolisku yimaadaan oo ay qofkan la hadlaan ay yiraahdaan waxa sameynaysid maaha wax fiican anyway ninkii maalintiiba ugu horeysay inay booliska maartay ay yimaadaan waxay tiri nin baa ninaan la sheekaysan jiray baa idaba jooga oo aan nafta maartay ii keenay haddana waa ka dhagax buu kusoo tuuray waayo waan arkaa way tiri dabadu taagan yahay dhagax buu daaqadeeda kusoo tuuray daaqadeeduna waa burburan tahay marka please kaalaya ninkii anu waxaan oran lahaa wuu cararay markuu guriga jabiyay halkii buu taagan yahay booliskii sidii saguyo taagan oo caraysan oo qaylinaya oo magaceedii u yeeraya buu bay booliskii yimaadeen booliskii waxay yiraahdeen waan qabanaynaa laakiin markii dambe waxay tiriyadu ma iska daa ma doonayo wuu caraysan yahay wuu iska ka ilaawi doonaa wuu isbedeli doonaa please iska sii daaya booliskii ninkii halkii ku sii daayeen gabadhii halkii laga rabay maartay in ninkan ay booliska maartay gacanta ka saarto ay tiraado khaatiyan ma ka taaganahay oo family-geedo dhan ay u baqayaan waayo way ogyihiin waxa ninkan wuxuu sameynayna caadi ahayn yadii ninkii bay fasaxday waxay tiri maya waxa malaha ma dooniyo maartay inaan ninkan inaan ceebeeyo marka way sii daysay basically way soo daysay ninkii ta kale waxay tiri waxay dareemaysay family-gu say sheegayaan maartay guilty waayo ninkani 7 sano buu nolosheeda maartay biilayo kale guri dhan u iibiyay marka ninkii booliskii markii sii daayeen iyaduna markaa ay arooskeedii qaban qaabinayso sameynayso waxay tiri waxa malaha hadda 10 bay u noqon doontaa boolisku maadaama ay soo galeen ay qabteen aragtay uma noqon doono faraha uga qaadi doonaa iska daaya halkii wuxuu sameeyay I don't know inuu maqlay markaas isla maalintii baaba ugu dambeysay wala telefoon buu soo diray wala xafadeedu yimi way arki waayeen ninkii meel allaal meel u maray ma jirto 6 week marka daaqada maartay soo jabinayo 6 week baa ka harsan arooskooda 6 week ilaa ay maalintu maaragtay ay arooskoodu dhacayo ninkaas lama arkin lama maqal maalmihii ugu dambeysay
arooskooda soo dhow yahay isla maalintiiba arooskii markaa dee waa kano maantaas uba dhacaya marka iyadu waxay isleedahay ninkani khalaas uu ku ilaaway dib oo dambaysa maarta ma soo noqon doono marka maalintii arooska ba waa tanoo dee arooskeeda maarta ka dhigtay wax wada cadaan sharaxaad oo dhan waxay ka dhigtay cadaan dharka ay gabdhuhu xidhanayaan milxiisadaha iyadu everything waa wada cadaan wax kasta waa cadaan marka hooyadii waxay aragtay meeshii koonaha maarta ubaxyadu yaaleen oo wada cad waxay aragtay ubaxyo badan baa ubaxyadii kale cadaanka baa dhex yaala oo casaan ah kuwa qaar fara badan oo casaan ah marka hooyadii way yaabtay waxay tiri sootiyaa tiri wax kasta way cadaan wayna noqdaan bahaladan cascas xaggay ka yimaadeen markaas tiri waxa wiilkii hore aan la shakaysan jiray magaciisa maxay horta Augustine baa ninkan waalane maartay naagta la daba dhigay baa la yiraahdaa Augustine waa magaciisa markaas tiri Augustine baa flowerkan ii keenay waxyadan ii keenay markaas tiri sidaad adigu aqabsha sidoo ninkani aad lahayd farawiga qaaday sidoo ku keena maartay waxay maalinta arooskaaga marka weli family-geeda maartay ninkan weli way ka shakisan yihiin iyagu ma aaminayaan laakiin iyada ayar biska aaminta waxay tiri waxa malaha halkii bay waxay tiri qurux badan yihiin waa iska deys iyadoo markaa isdiyaarinayso oo by the way waxaan oo dhan waa la duubay markaa isla markaa maartay ay ubaxyadan ay ka hadlayaan iyo ay arooskan maartay ay toobkii soo xidhatay milxiisadihii ay joogaan sawirraa markaa la iska qalqaadaya waxaan oo dhan waa la duubayaa live video markaa ka dalbatay oo si maartay everything ay sameynayso markaa la diyaar garoobayay waxaas oo dhan in la duubo markaa iyadoo markaa gabdhihii milxiisadaha maartay ubaxyada mid kasta ubax u dhiibaysa xag maartay iska baashaalaysa dee oo faraxsan oo ilaa maalintii ay doonaysay maartay intaasoo sano bay doonaysay inay for once maartay mar ay aroos weyn dhigato sidee doonaysay family-geedii everything wixii wax kasta dhagdhag sidii ay doonaysay way faraxsaneed marka dabadda gabdho ayada saaxiib yihiin baa waxay ku arkeen gaari gurigii ku dul wareegaya dhowr joor buu sii maraa soo maraa basically gaarigaas gurigiisu buu ku wareegaya marka gabdho waxay yiraahdeen way garteen ilaa ninkani waa nin ay maartay nolosheeda ay la qaybsatay 7 sano marka family-geeda iyo friends-geeda ninkan way yaqaanaan way garteen marka mid ahaan baa tiri markaan arkay waxaan yiri waan u sheegaynaa markaas mid kale tiri no inaynu ka jajabino maaha waayo waa maalinteedu way faraxsan tahay ninkana dhibaato mooyaan wax kale ma keenayo marka inaynu maartay haddada xilligan in u sheegno naano maartay ka warwarino maaha oo naano ninkii baa dabad maartay ku warwareegaya waa inagu maartay inaga dusha ka ilaalina laakiin iyadoo iska daaya halkiiba qofna uma sheegin inuu ninkii xaafadeeda ku dul wareegayo sidii markaa isagoo u wareegaya nimankii markaa dabada taagtaagnaa oo sugayay inay soo baxdo maartay sida gawaarida ay u koraan ay xafladii meesha ay tagaan baa walaalkeed gabadhan Gladys walaalkeed baa markaa dabada taagnaa ninkii markaa maanta oo dhan sii socday wuxuu damcay inuu markaa gurigiisa soo taago oo uu yiraahdo maxaa meesha ka dhacay waxasaasa inkastoo ogyahay wax kastoo ogyahay uu yeelay markaas markaa wuxuu la kulmay walaalkeed markaas ku yidhi listen maxaad rabtaa dhibaato mooyaane trouble bad wadaa maxaad halkan joogtaa ma rabto Gladys ma doonayso maalinteedii weeyaan way aroosanaysaa way ku ilowday qof kale maartay maanta la socotaa nolol kale samaysanaysaa maxaa meesha ku dhigay masuuli anigu waxa soo dhan maartay waan ilaaway hadda caadi baan ahay waxaan ka u joogaa inaan maartay hambaliyo maartay u diro aan just maartay waxaas ma joogaa wax kale ma joogo marka walaalkeed uu yara aaminay wuxuu yiri okay isla markiiba hadalkaayo waxaas markuu yiri wuxuu kulli waxa ma kala sameynaa anaga joogna marka wuxuu yiri okay orado tag ninkii wuu fasaxay inuu maartay guriga soo galo marka ninkani wuxuu socdaa marka shaqo uu socdaa oo wadada marayo marka waa xasuusta ninkana waa businessman meelo badan buu maartay ka qudbadaya oo waxyaabo maartay wixiisa faafiya sheega marka wuxuu sitaa suitcase bustaa maartay sidii qof shaqo tagayo kale uu labisan yahay marka uu leeyahay just one la yara soo hadlaya waan ka soo baxaya khalaas marka qofna isma oran maartay
wax kale samayn doonaa. ninkii halkii buu dusay gabadhii markaa idiyo de sawir laga qaadayo oo malxiisadii marba mid maaragtay u dhiibaysa dhunkanaysa ubaxyo u dhiibaysa buu ninkii soo galay shandadii uu sitay uu kala furay xabad baaskood soo saaray isla markiiba gabadhii buu saaray ba sida arkaysaan videogaas halkii buu gabadhii toogtay macawad arkaysaa videoga maaragtay hadii maaragtay slow motion maaragtay laga dhigo oo slow laga dhigo waad arkaysaa ninka wajigiisa xanaaqa like inuu hadana baaskoolada uu doonayo maaragtay inuu hadana xabad kala rido waad arkaysaa maaragtay xanaaqa iyo naceebka ka muuqda wajigiisa gabadhaasna family horteedii like family qofna kama maqnayn maalinteedii ay maaragtay ay farxi lahayd ay faraxsanayd ba anyway halkiiba inantii maaragtay ku dhacday nafta markiiba ka baxday straight away waa dhimatay isla markiiba waayo meel xun buu kaga dhuftay xabadda nolosheedii halkaasi maaragtay ku dhamaatay halkiiba ninkii la qabtay waa la wareystay waxa la yidhi waa u dishay waayo ninkan wuxuu samayn jiray baa ku maaragtay ku tusaysa inuu wax kasta maaragtay possible ka ahayd sababta waxaan u sameeyay xawayaan wuxuu qaadan waayay maaragtay si yare sida ay maaragtay nolosheeda ay markiiba uga talaabsatay maaragtay tii ay ku jirtay mid kala gashay u soo noqon weyday waayo ninkani wax kasta wuxuu isleeyahay waad siisay guri baad siisay marka siday kaaga tagtaa wuu qaadan waayay marka waxa ka dhaadhacsanaa oo yiri hadii maaragtay anigu aan waayay nin kale ma heli karo hadda ninkani waa nin muu ahayn toosa oo been buu sheegi jiray oo waa kano khiyaamo maaragtay dabadeeda maaragtay wax kasta ka samayn jiray haddana markuu ogaaday inay go-aan gaadhay ay ka tagtay wuxuu damcay inuu de baaskool soo qaato oo inanta kawka ka siiyo anyway maxkamadii markii la keenay markii la wareystay waxaa la yidhi iyadaa maaragtay iyadaa ka dambeysay iyadaa u jilecsanayd iyadaa marmar arki jirtay waxaasina been bay noqotay marka ninkii waxaa lagu xukumay xabsi uuna weligii kasoo baxayn gabadhiina waxay noqotay qof maaragtay aan weligeed la ilaawin marka maalintii ay dhimatay waxaaba la bilaabay dumar badan baa maaragtay Mareykanka waxa laga bilaabay in maalintaas sanad kasta bisha maaragtay September markay noqoto sanad kasta in ay dabaaldegaan dumar badan oo ay xidhaan toobki maaragtay ay ama ay ku guursadeen ama de toob maaragtay kuwan waxaan cadcad oo ay dabada u soo baxaan oo ay faafiyaan maaragtay dhibaatooyinka dumarka maaragtay ay ku dhaca marka maaragtay ninku uu ama dilayo oo ama abuse gareynayo waxa la yiraahdo domestic abuse ba marka maaragtay magaceeda lagu soo qaadaa wali waa la xusaa sanad kasta September hadda xubniya 20 sano weeyaan inta markasta sanad kasta la xusayay September kasta waxa laga hadlaa arrimahaas maaragtay sida looga hortagi lahaa in maaragtay de in wax laga qaban karo iyo in kale ninkii wali jeelku ku xiran yahay sheekadaas aan ku dhameynaya asxaabta mid waxay adeen maaragtay caloosha ka xanuunaysa tan waa kana xay wallahi waliba especially waxaan kana xad dumarka hadda ku jira maaragtay noocyadaas maaragtay nolosha ku jira ay baqaya abuse-ka maaragtay ku dhex jira marka insha Allah adiga daawanaysa hadii maaragtay nolosha ku jirtid please walaalo ha adkaysan ninkaas ka carar any abuse maaragtay haduu jiro any abuse maaragtay looma adkaysto qof u tag ama booliiska u tag laakiin ha adkaysan hadalka marka la leeyahay maaragtay qofka markaan ku leeyahay like hadda oo kale oo waxa wad sameyn kartaa samee it's not easy waan ogahay I know marka videogaas aan ku dhameynaya asxaabta insha Allah waxaan leeyahay sida ay nabad galiyo kulan dambe salaam calaykum